fadeexadii Bush iyo Susan Haddad waxaa lagu kadiyay doctorad Ciraaqiyada Susan Haddad inuu qof maalin soo wacay una uu sheegay inuu ka tirsan yahay wakaaladda sirdoonka ee CIA-da. waxaa Susan afkalaqaad ku noqday kadib goortii uu ku yiri ninkii sirdoonka ayaa soo wacay waxa uu rabaa inuu ku caawiyo ciidamo ku ilaaliyana uu ku sameeyo si looga guuleysto dagaalka argagixisada lagu hayo. kaliya waa inaad warbixin ka soo ururisaa hubka nukliyeerka ee Ciraaq haysato. isagoo ninkii soo wacay uu sheegay in Susan ay rabto la siinayo. ninkii soo wacay sirdoonka ahaa waxa lagu magacaabay Chris. maxaa ku kalifay in CIA-da nin ka shaqeeyo uu soo waco Susan? aan yara jaleecno. Susan Haddad waxa ay ka soo carartay Ciraaq iyada iyo ninkeedii 25 sano ka hor ciriiri ay kala kulantay sirdoonkii Ciraaq. Susan dhankeeda aad ay u cabsatay markuu carabka ku dhuftay inuu yahay sirdoon. waqti aan fogeyn kadib Susan waxa ay wacday xarunta ay FBI-da ku lahayd magaalada Cleveland waxaana ay weydiisay FBI-da weydiimo ah waa kuma Chris, ma American ba mise waa Ciraaqi? danta uu ka leeyahay maxay tahay? iyada iyo qoyskeeda ma dhibaatay ku jiraan? waxaa lagu kadiyay inuu ka mid yahay wakaaladda CIA-da ninkaas sirdoonka ee soo wacay. iyaguna waa ay xaqiiqsadeen kadib markii ay la xiriireen xaruntoodii Washington. Susan saan hore u soo sheegnay inuu ballamiyay Chris, balse waxay ugu cudur daaratay in aysan Morgan awoodin waayo cilaajyeelidda hooyadeed bay ku mashquulsanayd taasoo ka timid magaalada Baghdad kuna u dhacay hooyadeed kansarka. waxay ahayd bishii Abriil 2002. waxa uu ahaa Chris mid la soo xiriira Susan balse ayadu kuma aysan waafaqin ilaa ay hooyadeed geeriyootay bishii Luulyo. waxaa lagu aasay magaalada ay deganeed ee Cleveland. waxa uu iclaamiyay Bush inta uusan wicin Susan Haddad iyo Chris 3 bilood ka hor Koongareeska hortiisa in ku duulitaanka Afghanistan aysan nihaayo u ahayn dagaalka argagixisada ay kula jiraan Mareykanka. waxa uu yiri Bush in dadka ay ku tilmaameen argagixisada weeye inay qorsheynayaan inay hub nukliyeer ah ku soo gamaan Ameerika waxaana caawinaya dadkaas dowladda sida Ciraaq oo kale ah. waa weedii Bush uu Koongareeska hortiisa hordhigay. waxa uu hanjabay Bush Ciraaq haddii uusan xadkiisa ku ekaan hubka nukliyeerkana ay iska keenaan. haddaba su'aasha taagan ayaa ah talow Ciraaq ma nukliyeer bay haysatay? jawaabtu waa maya oo markii uu burburiyay ayay Washington tiri waan ka weynay nukliyeerkii aan ka raadinay. haddaba aan ka sii soconno intaas. bilihii ka dambeeyay waxa uu soo saaray Bush kuna socotay wasiirka gaashaandhigga inay u diyaar garoobaan duulaan lagu qaadayo dalka Ciraaq. sababta Susan looga dalbaday inay warbixin ka keento dalka Ciraaq ayaa ah inay tahay walaasha Sacad Tawfiiq oo ah caalim hubka nukliyeerka ku xeel dheer. waxaa lagu kadiyay Susan Haddad iyadoo qaxwo ka kabanaysa maqaaxida Starbucks ee ku taala magaalada Cleveland inuu Chris ku yiri madaxweyne Bush ayaa xiiseynaya inaad caawiso Ameerika iyo inaad ka caawiso inay libin ka hesho dagaalka irhaabka iyo sidoo kale in ay xogo ku saabsan hubka nukliyeerka ay dalka Ciraaq uga soo ururiso iyo inay Ciraaq u safadho kuna ay qanciso walaalkeed Sacad Tawfiiq inuu Ciraaq ka soo cararo una uu soo maro soo cararitaankiisa waddanka Kurdistaan. waxaana ugu sii daray in sirdoonka ay ka caawin doonaan fakashadaas una ay damaanad qaadayaan Susan iyo walaalkeed inay jinsiyadda Mareykan iyo maal mug la siinayaan. hadduu diido Sacad Tawfiiq inuu u soo guuro Mareykanka waxaad ka dalbanaysaa inuu farta ka saaro macluumaad ku saabsan hubka ay Ciraaq samaysanayso. waa ay waafaqday Susan. su'aasha maankeeda ka guuxaya ayaa ahayd toloba waxaa noqday sirdoonad Mareykan ah balse waxay nafteeda ku qancisay in dib u laabashada ay dalkeeda ugu tagayso ay fursad u tahay aragga walaalkeed oo 20 sano ka hor ugu dambeysay. inta aysan safrin marar badan ayay la kulantay Chris gurigeeda dhexdiisa. waxayna sidoo kale la kulantay koox wakaaladda sirdoonka ee CIA-da ka tirsan iyagoo baray fanniga jaasuusnimada hab qoraal ah in qad aan la arkay wax lagu qoro
isticmaalidda warqado ilbiriqsi gubanaya, isticmaalidda qalimo kaamirad ku qarsoon tahay, iyo ka takhalusidda aaladaha sirriga hadday ku kadiyaan sirdoonka Ciraaq. Waxa ay keentay Susan fikir cusub oo ah inay macluumaadka ku qodho qaab xaraf oo kale ah, xuruuftaasna ay ku kala qaybiso alaabta ay sidato. Waxa uu weydiiyey Chris, maxaad damaanad qaaday inuu walaalka kula shaqaynayo haddii uu ogaado inaad annaga nala shaqayso? Waxa ay ugu warcelisay in ninkeeda hooyadiis ay Ciraaq uga timid si ay uga qayb gasho aaska Susan hooyadeed. Waxa ay ka codsanaysaa in ay walaalkeed weydiiso hadduu doonayo inuu ka jawaabo su'aalo ku saabsan hubka nukliyeerka ee Ciraaq, balse Susan sadohdeed waa ay ka cabsatay inay gasho howlaha sirdoonka iyo jaajuusnimada, anse waxay ka damaanad noqotay inaysan sheegayn. Waxayna labadaas isku waafaqeen qorshahan soo socda. Waxay sadohda u safraysaa Ciraaq kuna odhanaysaa Susan walaalkeed iyadoo la gooni ah. Waxa ay doonayaan amiirka inay kula hadlaan una soo marayaan dariiqa Susan. Waxaa ku soo wacay Susan kuna ay weydiinaysaa, caafimaadkaagu ma fiican yahay? Haddii aad tidhaahdid waxaan u fahmaynaa inaad waafaqday dalabkii, waa ayna imaan doontaa Ciraaq si ay adiga kula kulanto. Waxa ay islaantii u soo laabatay Ciraaq. Maalinkii xigayna waxa ay aaday gurigii Sacd, kana ay codsatay inay bannaanka ku wada hadlaan. Cabsi ay ka qabto sirdoonka Ciraaq waxay fadhay warbixintii walaashiis. Maalinkii xigayna Susan walaalkeed ayay soo wacday, weydiisayna inuu caafimaad qabo. Haah buu ku yidhi. Dhowr jeer oo kale ayay weydiisay say u hubsato. Markii ay hubsatayna waxa ay u sheegtay in isbuuca soo socda ay Ciraaq u soo safri doonto si ay qoyskeeda u aragto. Waxay u soo dhaqaaqday Susan dalka Ciraaq. Markii ay timidna waxay ku booqatay gurigiisii iyo gurigii ay waalidkeed deganaan jireen, kuna yaal xaafadda Mansuur. Waxa ay dareentay inuu ka shakisan yahay, waana uu qariibsaday. Waxa waqtigan soo ceshay iyadoo aysan muddo la soo xiriirin. Waxa uuna ka diiday in muddo fasax uu ka qaato shaqadiisa si ay waqti wada qaataan. Habeenkii labaad xilli ay saqbar tahay waxa ay ka codsatay inay bannaanka ku wada hadlaan. Markii arrinkii nukliyeerka ah ee ku soo hadalqaadayna waa uu ka carooday, kuna uu yidhi inuu ku faraxsan yahay Ciraaq, inuusan ahayn nooca u wada shaqeeya laba dal, mana uusan rumaysan in walaashiis ay noqotay jaasuusa sirdoonka Maraykanka ah. Wariya dhammaantii wuxuu u soo gabagabeeyey inuu ka cabsi qabo sirdoonka Ciraaq, lagana yaabo inay soo dabagaleen imaatinkeeda ay ku timid dalkan. Waxa ay habeenkaas weyday rajadii ay ka lahayd walaalkeed inuu warbixino siiyo iyo inay soo cararaan dalka Maraykanka. Waxayna u wareegtay qorshihii labaad ama Plan B. Waxayna weydiisay in wakaaladda sirdoonka ay u xilsaareen inay warbixin ka keento mashruuca hubka nukliyeerka ay Ciraaq samaysanayso. Weydiimo ayay walaalkeed weydiisay, halkee buu ka yimid hubka nukliyeerka? Waa kumee culummada gacanta ku haya mashruucaas? Halkee buu yahay barta uu madaxweynaha ku sugan yahay? Waa uu la yaabay walaalkeed. Waxa uuna weydiiyey isha ay Ameerika warbixintaas ka soo xigatay, waayo xogahaas waa qadiim, mana uu jiro wax la yiraahdo barnaamij nukliyeer. Mid ayaa jiray, balse waxa burburiyay dagaalkii Khaliijka 10 sano ka hor. Way qariibsatay walaashiis arrinku u sheegay laba sabab darteed. Kow, waxa ay aamintay su'aalaha wakaaladda sirdoonka inay saxan yihiin iyo inay macluumaad lagu kalsoon yahay cugsanayaan, kamana aysan shakin Maraykanka inay ka timid 2 maalmood ka hor. Ciidaamka Ameerikana uu ku celcelinayo inuu ku soo duulayo Ciraaq, haysatana hub nukliyeer ah. Qisadan iyo kuwa kale waxa wax ka qoray kitaabka la yiraahdo Xaalatul Xarbi ee uu sii daayay qoraaga magaciisa la yiraahdo Raysen, saxafi ka howlgala jariirada New York Times. Raysen waxa uu bannaanka soo dhigay fadeexad ah in maamulka Bush uu dhageysto moobeelada muwaadiniinta Ameerika, iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo xarbul calal irhaab. In weerarkii sarihii mataanaha kadib uu amray CIA-da in la dhageysto wicitaanka shacabka Maraykanka. Saxafi kale ayaa isna macluumaad bannaanka soo dhigay dabayaaqadii 2004. Waxa uu la xiriiray aqalka cad si uu jawaab uga helo. Waa uu ku argagaxay aqalka cad warbixintaas, kana uu dalbaday inaan la faafin si aysan waxyeello ugu geysan amniga Ameerika. New York Times ayaa waafaqay inuusan faafinayn warbixintaas, balse sanad kadib
waxaa is arkay Bush inuu fadeexad dhex taagan yahay oo shacabka Mareykanka ah raali kama uusan hayn in Ciraaq lagu duulo. Kitaabka Xaalatul Xarbi ayaa siro badan bannaanka keenay oo ah in dagaalkii Afghanistan iyo Ciraaq lagu qaaday ee uu marmarsiyo looga dhigtay dagaalka looga soo horjeedo argagixisada aysan ku taagnayn macluumaad xaqiiqi ah iyo inay wax kama jiraan tahay propagandaha ah dagaalka lagula jiro argagixisada oo waxa ogaa waxaan inay wax kama jiraan yihiin Bush iyo rag xul ah oo la shaqeeya. sidoo kale kitaabku waxa uu sheegayaa in hubka nukliyeerka ay ku andacoonayso Mareykan ay iyadu qayb ka mid ah siisay 20 sano ka hor dalka Ciraaq xilligii ay saaxiibada ahaayeen kuna ay caawisay dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan oo sanadku markuu ahaa 1982 Mareykanka waxa yimaaday rag raba inay nukliyeerka wax ka soo ogaadaan sida Saacad Tawfiiq aan horay uga soo hadalnay, Jaafar Diyaa, Umaad Khawri iyo rag kale waxa ayna Ciraaq u soo laabteen iyagoo wata macluumaadka nukliyeerka lagu sameeyo oo Ameerika wax danayn ama siin raggaas aan horay u soo xusnay ilaa ay xiriirka Ciraaq iyo Mareykanka ka dhexay ay xumaadeen oo Ameerika si cad iyo si qarsoonba ay ula xiriirtay raggaas si xaggooda u soo mara oo waxay u soo adeegsadeen Saacad Tawfiiq aan horay uga soo hadalnay walaashiis. waxa ay sheegeen raggaas Saacad Tawfiiq uu ka mid yahay inaysan Ciraaq oolin hub nukliyeer ah iyadoo saa ay tahay ayuu Mareykan go'aansaday inuu Ciraaq ku duulo burburin aysan ka soo kabsan ayuu geystay. Wassalaamu calaykum.